Dowladda Mareykanka ayaa juhdi iyo dadaal aad u xooggan oo cadaadis ah ku hayso wadamada Yurub kuwa oo ay ku cadaadinayso sidii ay dagaal xooggan oo aan kala go' lahayn ula geli lahayd qaxootiga soo galootiga ah ee ku sugan dalalka Yurub kuwa oo ay ku doonayso in ay dalalkooda kaga tarxiisho si taa la midana ay ku adkayso soo galootiga in ay Yurub soo galaan. Xogayaha arrimaha dibadda waddanka Mareykanka Marco Rubio ayaa isagu ku amray diblomaasiyiinta ama safiirada Mareykanka ee wadamada Canada, Australia, New Zealand iyo sidoo kale wadamada Yurub ee martida loo yahay in ay ku cadaadiyaan oo ay culays ku saaraan sidii ay uga hortagi lahaayeen qulqulka ajaanibta ama soo galootiga ay wadamadooda ku hayaan, sidoo kalena ay sharciyada iyo nidaamyada ugu adkay lahaayeen qaxootiga hadda sharciga la siiyay ee ku sugan dalalkaasi. Waxaana arrintan ka sheefay wargeyska New York Times ka oo soo xiganaya dukumiinti sir ah oo ay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ku cadaadinayso waddankaas oo soo baxay bishii November ee tagtay. Arrintan ayaa la sheegayaa in diblomaasiyiinta ay si joogto ah u bilaabeen in ay ku cadaadiyaan wadamada ay safiirada ka yihiin ee Yurub, Australia iyo sidoo kale New Zealand iyo Canada sidii ay arrimaha qaxootiga ula dagaalami lahaayeen. Mareykanka ayaa ku andacoonaya in aysan reer galbeedku horumarkooda iyo dhaxalkooda hore u socon karin ilaa ay ka takhalusaan ajaanibtan dib u dhigayso horumarka iyo sidoo kale bulshooyinkooda waxyeelaynayso. Waxa ayna diblomaasiyiinta Mareykanka oo howlgalkooda bilaabay cadaadis xooggan ku hayaan wadamadan ay safiirada ka yihiin sidii ay uga takhalusi lahaayeen ama ugu adkay lahaayeen ajaanibta ku sugan kuwa oo ay ku tilmaameen in ay culays bulsho iyo sidoo kale mid dhaqaale iyo mid amniba ay ku yihiin. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa isagu horey u sheegay in horumarka reer galbeedka iyo sidoo kale xadaaradooda heerka sare aysan sii socon karin ilaa iyo inta ajaanibta ku sugan wadamadooda laga takhalusayo, kuwa oo uu sheegay in ay dib u dhigayaan ilbaxnimada iyo horumarka ay reer galbeedku gaareen. Wasaaradda arrimaha dibadda dalka Mareykanka ayaa bayaan ay soo saartay toddobaadkii hore waxa ay sheegtay in soo galootiga ama qaxootiga ballaaran ee ku soo qulqulayo Yurub iyo wadamada galbeedka guud ahaan ay khatar amni ku yihiin, waxayna intaa ku dareen in xasiloonida iyo nabadgelyada wadamada saaxiibka la ah Mareykanka uu Mareykanku muhiim u yahay, taana ay muhiim tahay in iyaguna ay la dagaalamaan oo ay qaxootiga gacan adag isaga qabtaan. Dukumiintigan sirta ahaa ee uu kashifay wargeyska New York Times ayaa waxa uu ka kooban yahay 12 qodob kuwa oo loo dhiibay guud ahaan diblomaasiyiinta Mareykanka sidii ay ugu cadaadin lahaayeen wadamada reer galbeedka in ay la dagaalamaan oo ay qaxootiga ku adkeeyaan dalalkoodana ka musaafiriyaan sida uu hadda Mareykanku tarxiilka ba'an ugu hayo qaxootiga ku nool waddankaasi Mareykanka. Waxayna arrintan u daliishadeen in ay rabshado badan ku hayaan qaxootiga wadamada hormaray ee Yurub, sida in ay kufsanayaan gabdhahooda, ay ka shaqaynayaan burbur dhaqaale, sharciyadana ay ku tumanayaan, dambiyo isdaba joogna ay sameynayaan qaxootiga ama soo galootiga wadamada ku sugan. Arrintan ayaa dad badan waxa ay ku noqotay la yaab maadaama Mareykanku uu waa hore bilaabay in uu si adag ula dhaqmo qaxootiga dalkiisana ka tarxiilo guryahana ugu galo isaga oo ka soo raafaya guryahooda, goobaha ganacsiga iyo goobaha kala duwan ay bulshada isugu timaado, taa oo lagu yiqiina Sacuudiga. Ha yeeshee arrintaa mid la mid ah ayuu hadda wadamada Yurub, Canada, Australia iyo New Zealand u cadaadinaya iyaguna ay sameeyaan oo ay qaxootiga sharciyada helin, kuwa sharciga leh iyo kuwa jinsiyadda lehba ay si adag ula dagaalamaan dalalkoodana ka soo tarxiilaan jidadka, guryaha iyo goob kastana uga dabagalaan. Arrintan ayaa dad badan waxa ay ka muujiyeen walaac, waxayna arrintan la yaab ku noqotay dad badan oo arrimaha siyaasadda iyo bulshadaba ku caan ah, kuwa oo dhibaataynta qaxootiga iyo soo galootiga Mareykanka lagu hayo ay haddana Mareykanku isku dayayaan in ay dalalkii kale u gudbiyaan oo iyaguna ay sameeyaan sida uu hadda Mareykanku sameynayo. Halka warka kuwiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.